wuxuu soo fadhiistay horteeda wuxuuna ka qabtay labada garab si naxariis leh isagoo ilintu ka daadanayso wuxuuna ku yidhi wallaahi mar dambe uma laabanayo. xaaskan waa gabadh daayar oo Allah subxaanahu wa tacaala ugu deeqay qalbi wanaagsan iyo cibaado iyo akhlaaq. waxay caado u ahayd inaysan marna ka tegin salaada subax, waxaanay la tukan jireen iyada iyo walaasheed hooyadood, halka aabaheed iyo walaalkeedna isku raaci jireen masaajidka. maalin maalmaha ka mid ah ayay tagtay salaadii cishe kadib guriga walaasheed oo umul ahayd si ay u caawiso walaasheed maadaama ay ilmo yar haysatay. kadibna way isaga soo laabatay goor dambe oo habeenkiia iyadoo aada u daalan, waxaana wehelinayay saygeeda. gabadhii wanaagsanayd waxaa la tagtay hurdada, waxaanay ogaatay markii ay soo kacday inay ka tagtay salaadii subax, waxaana ku batay welwelka, waxaanay dareentay walbahaar, waxayna ahayd inay dhex taagan tahay oo kale naar. allaah inaga badbaadiye. waxaanay go'aansatay inay u taagnaato maalinkaa oo dhan salaad iyo cibaadada Rabbi ilaa ay ka dareento in qalbigeedu u dego, maadaama ay ahayd maalinkii ugu horreysay ee salaada subax ka tagto. saygeedii wuxuu iska aaday shaqada iyadoo weli ku jirta cibaadada allaah. markii uu soo laabtayna sidii oo kale ayay allaah u baryeysay saygeeda oo daalanaa, maadaama uu shaqo ka yimid wax yar ayuu yara seexday. markii uu soo toosay wuxuu arkay xaaskiisii oo weli tukanaysa, khushuuc daran ay ka muuqato. saygeedii wuxuu aaday masjidka, markuu ka soo laabtay si toos ayuu ugu tegay xaaskiisa oo weli halkii ku tukanaysa. wuxuu soo fadhiistay horteeda wuxuuna ka qabtay labada garab si naxariis leh isagoo ilintu ka daadanayso wuxuuna ku yidhi wallaahi mar dambe uma laabanayo. saygeeda waxaa u doonanaa xaas kale, wuxuuna u ballansanaa maalinka inuu gogol fadhiisto ehelkeeda. laakiin markuu arkay ilinta ka da-aysa xaaskiisa uusan aqoon waxa sababay, wuxuu u maleeyay in la ogaatay arrinkiisa oo ay ka shalaynayso guurkii ay guursatay. qalbigiisa ayaa jilcay, wuxuuna ugu soo dhowaaday xaaskiisa si ka wanaagsan sidii hore. xaaskan wanaagsan waxay ka welwelsanayd ka tegidda ay ka tagtay salaadii subax, ilaahayna wuxuu raaligeliyey saygeeda oo la guursan rabay, go-aankiisiina bedelay. fariintan ha hilmaamin inaad la sii wadaagto saaxiibadaada, kuna soo biir haddaad ku cusub tahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa hooyadii dhiirigelinta dhalinteena Soomaaliyeed.